رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب هيئات الخطبتين وآدابهما. وباب يهي لوضع خطبة iyo qaababkooda, siyaabaha loo sameeyo iyo aadaabtooda, aadaabta loo baahan yahay in la ilaaliyo iyo qaabka labada khudba ay u dhacayaan. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحوري: كان النبي وحوها صلى الله عليه وآله وسلم يخطب من خطبة أيها يوم الجمعة مالنت الجمعة قائما إسقو تاغن ثم كدمنا يجلس وفريسا شري ثم كدمنا يقوم واستاغ شري كما يفعلون سيدي سمين يانو كالي اليوم مانت سيدي صحابة سمين يانو سيدي ضدكو هذا مانت سمين. روح وري الجماعة جماعة دي باوريسي. حديث كوحو تلمامية خطبة إن استاغ لغو أخرين شري النبي صلى الله عليه وسلم إنو استاغ كو أخرين شري إن استاغ لغو أخرينا علماء بدنكود وحي قبان إني واجب تاي لدى الجمهور وواجب. waxaa kaloo ku tusaysa daahirka aayadda quraanka markay tilmaamaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam khutbadiisa: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا taagan bay ka tagayaan bale. marka badankood waxay qabaan waa jumhuurte in istaagu uu waajib yahay, sidaasina wuxuu ahaa hadyigii khulafaa ur-raashidiin iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim. طيب، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله baa isaga waxa laga wariyaa in uu yidhi waa sunno ee waajib ma ah. Shawkaanina wuxuu leeyahay waxa la soo wariyay la soo guuriyay waa uu nabigaas samayn jiray, ficilkuna wujuub ma faa'iideeyo buuri. qowl lama hayo ee nabiga uu istaagi jiray baa la hayaa. ficilkiisuna lagama faa'iideysto wujuub ee waxa u badan uu faa'iideeyo waa istixbaab. xogaa waxaad moodaa inuu ilanayo ra'yiga dhahaya istaagu waa sunno. طيب، waxaa kaloo iyadana laga faa'iideysanayaa oo xadiidku faa'iideynayaa inay hay-aadka ka mid tahay khudbada labada khudba dhexdooda in la fadhiisto. iyadana nabigu samayn jiray sallallahu alayhi wasallam. imaamu shaafici iyo qayrkii baa waajibiyey iyadana fadhiga labada khudba u dhaxeeya ee kala faslinaya. وعن جابر بن سمرة قال وحوري: كان النبي وحوها صلى الله عليه وسلم يخطب من خطبة أيها قائما أسقو تاغن ثم كدمنا يجلس وفريسا شري ثم كدمنا يقوم واستاغ شري خطبة دي لواد بسو تاغ شري فيخطب مركاسو خطبين شري قائما أسقو تاغن. فمن قال الروح يرهد إنه نبي يخطب خطبين شري جالسا أسقو فرديا فقد كذب بين بوشيكاس. فقد كذب بين بوشيك. فقد والله إلهي بان قدرتي صليت وانت كذي. فقد صليت والله دوا اعتراضية قد يفعل كي قلي لهيد أي دارتك لا دحقش. فقد حقيقة فقد والله صليت وانت كذي معه النبي قال لتشرنكيس أكثر وحكبضا من 2000 صلاة. 2,000 salaadood wax ka badan 2,000 salaadood ka badan baa nabiga la tukaday buur oo jumco ah. sidaas daraadeed marnaba isagoo fadhi ku khudbaynaya ma arkin buur. ruuxii markay yiraahdo nabiga fadhi ku khudbayn jiray been buu sheegay buur. رواه حوري أحمد باوري ومسلم وأبو داود
waa sida uu sheegay nabiga noloshiisa lagama xifdinin lagamana hayo isagoo fadhi ku khudbaynaya bal khulafaa'ur raashidiin baan laga haynin taqriiban waxaa la soo guuriyaa ciddii ugu horraysay ee fadhi ku khudbaysay inuu ahaa mucaawiyat ibn abi sufyaan isagana waxaa la yidhahdaa wuu cuslaa markuu yani duqnimadu yaro taabatay oo sii cuslaaday markaasuu bilaabay inuu fadhiga ku khudbeeyo ayb وعن الحكم بن حزن الكلفي قال وحوري قدمت وان صوغلي إلى النبي كان أصوغلي صلى الله عليه وسلم وانو إمد ومقالة مدينة نقو إمد 7 تضبع متك تضبع يحالو يا النبي صلى الله عليه وسلم أو 9 أما السقال متك السقال يحالو يعني نبي قال لح ننبو تضبكو أها ama 8 buu 9 ku ahaa markaanu iimaanayo waa falabithna waan nagaanay buu cindahu nabiga agtiisa ayaaman maalmo oo magaaladan la joognay shahidna waan xaalan xaadirnay fiiha maalmaha dhexdooda aljum'ata jum'adii baan xaadirnay jum'adii baan goob joogahayno nabiga la tukanay maalmahan la joognay faqama wuu istaagay rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam متوكئا اسغو عسكن على قوس قانص كركب وشقانصدا اسغو عسكن او اما قال وحيد على عصا الكركيده اسغو عسكن بو نبي استاغ صلى الله عليه وسلم طيب فحمد الله الا ايو مهديه او اثنى وامانه عليه الا كركيسه كلمات ايو كو امانه خفيفات او فضود طيبات او وناكسن مباركات او لبركيو خير بدن طيب واستفتاحي وي كلماتك امانته iyo mahadcelinta iyo ku saabsana thumma kadibna qala wuxuu ayuha an-nas dadaw innakum idinku lan taf'alu ma samayn kartaan walan tutiqu mana awoodi kartaan kullama umirtum bihi wax kasto leedin amray in Allah timaadaan yani ma kari kartaan mana samayn kartaan kullama shay kasto oo umirtum leedin amray bihi isaga wax kasto leedin amray lama wada iimaan kartaan walakin saddidu laakin yani wax way toosiya oo abshiru bisharayst saddidu bimaana toosnaada way oo dhaxdhaxaadnimada ku dadaala bisharaysta oo janna rabbi iyo naxariistiisa iyo khayr ku bisharaysta yani tasdiidka iyo yani wax weeyaan iqtisaadka iyo iska macna dhow yihiino inaad ku dadaasho in aad inta ugu badaneed amarka la iimaan karto aad la timaado ama inaad asiibto ama oo tasdiidku wax weeyaan bimaana inaad hadafka aad asiibto way meeshii targetka tooganeysay inaad laftiisa la hesho baad tasdiidka saddidu wa qaribu muqaarabadana waxa la yiraahdaa hadafkii aad tooganaysay inaad ku dhawaysood agtiisa ku dhufato marka waxa la leeyahay ama amarkii asiiba oo wixii leedin daray sidoo aha ula imaada ama haddaydan la iimaan kareynin ku dhaweeya laakiin ha ka fogaanina way macna روح وري حديث كاسي أحمد باوري وأبو داود وعلى صحيحية حديث الحافظ ابن سكن إمام ابن خزيمة وحسنة كتحسينيي الحافظ ابن حجر يا شيخ الباني حديث كني وحفائدين يا وهذا ما شاء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هرت هذا خطبة إنه كوب لابن شري إلهي إنه مهديه أو أمانه كلمات فضفضت وناكسن وبركيسن إنه محوى هاي ديهجري حكى له يدنا كتشري حديثك إنه عسكن شري قل أما قانصو إنه شيء يعني وحوي عسكن شري أيها لقى قادنا يا مركو تاجين علماء وحي إليهم قار كمذا سيد ابن القيم يغير كيبه وحي إليه النبي قال لقى ما حفظ النبي ابن القيم مركو منبرك السمايستي كذب inuu minbarka ku fuuli jiray inuu seef cuskado ama qaansa cuskado ama shay cuskado oo uu minbarka ku fuulo bal sida xadiista ka muuqata waxa weeyaan qaansada iyo wuxuu cuskan jiray markuu dhulka ku khudbaynayo intuusan minbarka samaysanin
bay ahayd inuu ul ama qaanso ama seef oo kale inuu shay cuskado markuu khudbaynayo waxay ahayd buu leeyahay intuusan samaysanin mimbarka laakiin markuu mimbarka samaystay kadib lama hayo isagoo shay cuskaday oo shay haysto oo ku tiirsan oo saa gacanta ugu haysta lama hayo buu leeyahay isla sidaa waxaa maraya sheekhu al-Albani calayhi raxmatullahi baxthi uu leeyahay oo uu ku ururiyay axaadiista masaladana uu kaga hadlay asagana wuxuu gaadhayaa ama natiijadiisu ay uu leeyahay wax xadiisoo ku asaxay ma jiro nebigu markuu mimbarka samaystay kadib inuu shay u cuskada qaadan jiray oo uu lahaa macna tayib sida masaajida qaarkood oo kale hadda usha markii mimbarka imaamku khudbaynayo usha loo cuskado kale bacd fuqahaa ama culimada qaarkood ayaa iyagoo axaadiista cuskanaya waxay leeyihiin waa sunno in usha la qabsado oo imaamku usha cuskado waa sunnay leeyihiin laakiin ibn al-qayyim iyo qeyrkii waxay leeyihiin arrintaasi waa horeysay haddii dhulka lagu khudbaynaya dhib male laakiin mimbarka lagama hayay leeyihiin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh وعن عمار بن ياسر قال وحوري سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له إن طول صلاة الرجل نينك صلاة ديس درر كذا إيا وقصر خطبته إيا خطبة ديس قاب ندادو مئنة وعلامة ومن فقهه مئنة من فقهه وعلامة وكتصيس من فقهه فهم كيس إنه فهم سيه ووحقرني فأطيلوا ديرية الصلاة صلاة ديرية وأقصروا قابية الخطبة خطبتنا قابية رواه حوري أحمد ومسلم بمعنى صلاة إن لا ديرية خطبتنا لا قابية وحي دليل أتهي أو علامات أتهي فقهك إيا فهمك خطيبك إيا إمامك وفقيه وانين وحفهن سوا طيب وحقولي هاي الإمام محوها شوكاني عليه رحمة الله وحسال لوليه لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ بولي فقيه وحلي لذا والروحة يعني قرنية كلماتك كوبا هذانا معاني فربضان أرورين كرا فقيه بالله لذا بولي فيتمكن بذلك عن التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة لفظ قابا يجملوين كوبا بوحو كوغودان يا معاني آدو فربضان سيداس دراديد با فقهيغاسي وحو كينيا مادام اللقادينا او فهنسن yahay sharcigiina uu fahansan yahay luqada uu fiqigeeda markuu uu isticmaalo ee khudbadiisi iyo adiladii iyo nusuustii iyo hadalla kooban buu ku gudanayaa muhiimadiisa saasay khudbadiisu ku gaabanaysaa baynama ruuxa aan faqiiha ahayn meeshii kan uu halka yani jumlo uu macaani badan ku gudan lahaa kani wuxuu u baahan yahay jumlooyin fara badan oo waqtiga ka dheeraynay marka wuxuu leeyahay ma'innatun min fiqhi macnahaas laga qaadanaya salaada dheereeya khudbadana gaabiya rawi ahmad wa muslim wuxuu yiri wal ma'innatu al alamatu iyo wal madinna wa astaanta iyo madinnada meesha shayga laga malaynayo meesha shayga lagu malaynaya madinna la yiraahdaa iyo calaamadii astaanta ayaa la yiraahdaa طيب وعن جابر بن سمرة قال وحوري كانت وحي أهيد صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيك صلاة ديسو قصدا دحدحات بأهيد وخطبة خطبة ديسو قصدا دحدحات بأهيد رواه الجماعة باورسي إلا البخاري بخاري مويه وأبا داود يا أبو داود مويه وعن عبد الله بن أبي أوفى قال وحوري كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحوها يطيل مديري الصلاة صلاة ويقصر مد قابيوها الخطبة خطبتنا وقابين شري راه النسائي باوري وحصحيي الشيخ الألباني عليه رحمة الله وكذلك الحافظ العراقي وحليه هاي سنة كيس وصحيح ليرين تمرك حديث كان يكي كهري عمار بن ياسر لبضوا بواحد الماميان خطبتك إن لك قابين أيو حديث جابر بن السمرة أود حيانا وحو شيغيا خطبة إني دحدحات تاهي خطبة النبي يقول دحدحات هانجر طيب وحوليه هي الإمام النووي عليه رحمة الله سوى إسوافتشين يا حديث تاسي اسم خلاف سنبو لي حديث محايا لي خطبة ديرين تيدي قابين تيدو إيا صلاة ديرين تيدي قابين تيدو وشي نسبي
macnaheedu ma aha hadda maalan xadiidka hore fa atiilu salaata baa layidhi salaada dheereeya dheeraynta salaada waxaa laga wadaa buu leeyahay binisbati lilkhudba khudbada marka loo fiiriyo waay ee dheerayn dadka dhibaysa waa tii axaadiisteeda aan soo marnayoo salaada asal ahaan in la gaabiya asal ahayd ee markii khudbada loo fiiriyaa dheeraynta laga wadaa buu leeyahay almuhim waxa weeye dheeraynta khudbadu iyo gaabinteedu loo fiirin maayo macnaha lagama wado in ay salaadu ka dheer tahay khudbada lagama wado in ay salaadu ka dheer tahay khudbada ee waxa laga wadaa dheerida khudbaduna waa shay nisbi ah dheerida khudbaduna waa shay nisbi ah dheerida salaaduna waa shay nisbi ah taas way macnaha ee lagama wado salaadu inay ka dheeraato khudbada waxa ku tusaya arinta iyada cadaynteeda ah nabigu sallallahu alayhi wasallam khudbada jumcada wuxuu akhrin jiray saan soo marnay suuratu qaaf salaadana wuxuu ku tukan jiray saan u tagi doono marar badan yani ragcadda horena wuxuu ku tukan jiray sabbixisma ragcadda labaadna wuxuu ku tukan jiray hal ataaka xadiithul ghaashiya markaad isu fiiriso kee dheer marka ya qaaf baa dheer halka marka waxaa ka muuqata khudbada ka dheerayd salaada ee salaada dheeraynteeduna waa shay nisbiyo salaadaha kale loo fiirin khudbada dheerayntuna waa shay nisbiyo hadalka dadka loo jeedinayaa loo fiirin iyo waqtiga iyo dadku inaysan daalin iyo inay dhexdhexaad noqoto ee macnuhu ma aha salaadu ha ka dheeraato khudbada macnaha saxma oo qasdiga dhexdhexaadka laga wadaa macnaha dhexdhexaadka inayna macnaha dadku daalin hadal iyo kalimaad jawaamicana lagu guto muhiimadu waa taas macnaha طيب وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحوها إذا قرتي خطب أو خطبيه احمرت وحا قدودا جرتي عيناه لبدي سيندوت سيدي ننحناقصن وكله وعلى وحا كرن قنشري صوته صوت كيس واشتد وحا درنان جرتي غضبه عرديس يعني nin u xanaaqsan oo kala cadhaysan oo codkiisa iyo sawtkiisuna korbu u kici jiray indhuhuna waa guduudan jireen xataa ilaa kaannahu uu ka noqdo kaannahu mundiru jayshin sidii mid ciidan ka dighayo oo kale ah ciidan weerar ah oo yani deegaanka iyo dadkaba weerar ku soo ah sidii ruux ka dighayo oo kaleetu ahaan jiray oo yaquulu leh sabbaxakum war cadowgii waa idinku waabariisanaya wamassaakum galabnimuu idin gelaya yani waxa weeyaan caadatan waxay ahaan jirtay ninka digniinta xambaarsan oo cadow iyo ciidan soo haya magaalada ama dadka soo haya ninka ka digaya nin caadiya ma ahaan jir oo muxuu ahaay waa isbedelayaa oo ninkii wuxuu muujinayaa khatarta uu soo arkay ee soo socota inuu dadka dareensiiyo markaasaa codkiisu isbedelaya oo waa qayliyaya oo waa xanaaqaya oo indhaha guduudanaya oo maradu warfinahaya oo markaasu wuxuu leeyahay sabbaxakum wamasaakum war cadowgii subax buu idin gelaya ama galab buu idin gelaya ka kaca taas kale macna sidii nin ciidan soo socda ka digayo kaleeto laano nabigu sallallahu alayhi wasallam wax cadow iyo ciidan ka daran buu ka digahaya sooma wax cadow iyo ciidan ka daran buu ka digaya wuxuu ka digayaa cadaab iyo naar buu ka digayaa janno iyo yani wax weeyaan ilaahay daacadiisana dadka waa amraya marka qaabka isaga ah waxa wariya xadiidka muslim baa wariyay ibn maajah yani taasi waxay ku tusaysaa marka khatiibka dadka u khudbaynaya kayfiyada iyo hay'aadka waxa kamida inuu dadka uu dareensiyo muxuu ahaay khudbadiisu inay dadka saamayso inuu yani si daciif oo kaana isagoo muxuu ahaay darsi marsanahayo kaleeto oo iska dulmaro isagoo isku mashquulo oo waraaqiisa isaga mashquulo ma aha laana waxa la doonayaa dadka wax khuseeya inuu ka hadlo waxa dhacaya dadka yani waxa weeyaan danahooda ku saabsan aqradooda ku saabsan fasaadka jira dhaqan xumada jirta waxa diinta la dayacay
inuu ka hadlo oo ummadda yani dhaqankeeda ay ku saabsantahay khudbada la rabaa laakiin kitaab la qoray yani waxa weeye 1200 sano ka hor xilligii cabbaasiyiinta ama umawiyiinta intaad soo qaadato dad ku dul akhrido oo sida wadadada qaarkood muxuu ahaay aad tiraahdo allahumma ayyi dawlat ar-rashid allahumma ayyi dawlat ar-rashid waa kitaab la qoray xilligii Haarun ar-Rashid waa marka Haarun ar-Rashid baa loogu ducaynaya ilaahu Haarun ar-Rashid dawladiisa xooji khadiibku maantu saaran yahay minbarka wuxuu leeyahay ilaahu dawladii Haarun ar-Rashid xooji warba jirtaba inta soo qarni ka hor bay tagtay wax tagay buu ducaynaya marka oo ilaahu xoojiyo muxuu marka imtixaan waa marka waxa la doonayaa khatiibku حتى دوسن لغة عربية هجاجين كرينين لغة دتك أي فهم يعني نقول خطبة يوم لأن على الصحيح ومسألة خلافية لكن على الصحيح لغة جونية أو شرط وأمجر تخطبة هذا هو الصحيح مجامع الفقه يا علماء إن بدن مادة النور وحي ليهين خطبة مهمة ده وحوي دتك إن وحلا فهنسيو luqadii lagu gudan karo oo lagu gaarsiin karo inay wax fahmaanna waa in la isticmaalo haddaad intaad minbarka fuusho aad carabi kaliya akhrido ummadan in carabi ma taqaanaa ingiriis bay ku hadashaa sawaaxili bay ku hadashaa soomaali bay ku hadashaa jumhuurtoodu ma fahmaysa carabiga markaas intaad soo taagtay baad dhowr kelimo barakaysato iska akhri hal xabba lagama fahmin maqsuudkii khudbada loogu talagalo dhan waxba maada ka gudanin laakiin dadkii waxayna fahmayeen waad ku dul akhriday kaana ta'abbudi oo kale yadoo ah waana lagu kala dhaqaaqay meesha saamayn male noloshii dadka ma saamaynin khudbada dawrkeedii kaalinteedii ma gudanin marka muhiimadii khudbada ma aduguna maxaad ilaalinaysaa luqad carabiga aad ilaalinaysaa kaana sidii yadoo quraan oo kale waxyi oo kale yani waxa la ilaaliyo waa nusuusta alfaadooda ama luqada lagu gudanayo khudbada cala raajih dadku luqaday fahmayaan baa lagu gudbiyaa si ay saamayn u yeelato khudbadu macna oo muxuu ay u gudato muxuu ahay wixii loogu talagalay وعن حسين بن عبد الرحمن قال وحده كنت وحنها إلى جنب عمارة ابن رويبة ننكا دين عيسان هابوري والحال بشر بن مروان يخطبنا ونخط بيني بشر بن مروان مركا ونخط بيني ننكا سان قرب شوغابوري فلما دعا مركو دعي بشر بن مروان رفع كرب أقاد يديه لبدي سقعمت خطبتي بو كجرا markuu noo khudbeeyo xilligii ducada soo gaaray buu gacmaha taagay Husayn faqala markaas wuxuu yiri Umara wuxuu yiri yaani qabbaha Allah xumeeyo buu yiri haatayn yadayn labada gacmood buu yiri labada gacmood ee kor u taagan kuwa Allah haleeyo Allah xumeeyo buu waxa yeelay buu raaytu waan arkay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa ala al-minbar isagoo minbarka korkiisa saaran oo yakhtubu khutbaynaya إذا دعا مركو دعينيو أو يقول له هكذا سداله واسده فرفع يقول بمعنى يفعل يقول يفعل السمينية هكذا سدا السمينية أو واسده فرفع مركاسو كر وقاضي السبابة فرت ليلهذو مركستده وحدها كلي جيد بكر وقاضي طيب السبابة واليدا المصبحة واليدا سنوري بزوجي sababada waxa laga keenay min as-sabbi waa laga keenay ayba laga keenay oo waxay kala magac baxday waa la isku caaya caadatan fartan oo suulka ku xigtay waa farta la isku caaya ama la isugu hanjabo oo la isu gilgilo waa sooma ama hadii la is caayayo siyaabo kala gedisan la isugu caayo ma hada ma tilmaami karne marka saas daraadeed baa waxa loo yiri as-sababa loo yiri halkaas ay kala magac baxday musabbihana waa la yiraahdaa marka taa kaliyeetu kor u qaadi jiray buuri markuu tawxiidka iyo ducada iyo marayo khudbada dhexdeeda taa kaliyu kor u qaadi jiray laakiin labadan gacmood ee uu saaleeyay markuu ducaynayo gacmaha Allah ku tirabu ku yiri waa barak رواه وري حديث كاسي أحمد وري والترمذي بمعناه مثل معناه وري وصححه صحيحيي بل حديث كوحا صوصاري مسلم ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني بكوري ابن حبان أبو داود النسائي ابن خزيمة وانا حديث صحيح وحوت المامية هو إنو الشيقيا صلاة
yani waxaan u jeedaa khudbada jumcada imaamka inaan loo ogolayn markuu muxuu ahaay ama ducaynayo ama tawxiidsanayo inuu labada gacmood kor u qaado sidii isagoo yani xilliga ducada sida la sameeyo kale laakiin bedelkeeda fartaa inuu kor u qaado oo tawxiidsiga macna saasaa nabigu samayn jiray sallallahu alayhi wasallam وعن سهل بن سعد قال وحوري ما رأيت ما أنا أركن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه أساقو أمعوها صوصاري يديه لبديس قعمود قط وليقي يدعو حال الدعيني على منبر كركي كدعيني ولا على غيره أما منبر ميلان أهين كركي يسوه كدعيني وما كان موسى أهين يدعو من دعية إلا هدو هذا أو دعيني يضعه حديق جري يده قعنتيسا حذو منكبيه لبديس قربود قماتي قوضا وصيدنا معنا ويشير وحو إشاري جري بإصبعه فرتيسا إشارة فرتنا وتلمامي جري يعني فرط التوحيد بيت المامي دعادنا لبدك عموضو هالكن أوه منبرك كوركيسا نساكم السمين جنبول حلقة ودعاي سنة لبدك عمود مصو ساري جري ويشير بإصبعه إشارة فرط أنبو إشاري جريو ساسو ليجر روح وري أحمد باوري وأبو داود وقال وحونا يري فيه دحديث وقال وحوري فيه دحديث حديثك لكن رأيته وان أركيبوري يقول إساقول هكذا سدا وأشار وحونا إشاري بالسبابة فرتاسي سولك كحكته وعقد وحو قنتي الوسطى فردحذا أيو بالإبهام سولك كقنتي بمعنى سولك إيا فردحذا أيو قنتي ساسو قنتي واي لابدودا سيدي قنتين وكلا لقد لقيا فرتاسي محو أهاي سولك كحكتنا وتاقي جري واي ساسو معنا طيب زيادة دا سواحة إسكاله أبو داود با إسكاله حديثك وحاك لصو صاري ابن خزيمة ابن حباني الطوراني حاكم وصحيحي حاكم ذهبي بانا كوا فقي شيخ الباني سوحوا لي حديث كوا ضعيف لوعي اللوقبة علده كوبادي وحوي وحا كوشير اللي يرادا عبد الرحمن ابن معاوية أو ضعيف علده باللبادنا وحوي واضراب وحديثك لفتي جيسا أيو كل بسي أشيغي سيابك لقديسان بو أشيغي أو كتوصي إنو هوبي واي أما حفظي سؤوسا صحصنين حديثك وحا كلو ضعيف يسيدو كلا شيخ شعيب الأرناوط ساس ترادي حديثك وضعيف لكن وحا إنك فلان كاهرا إنك فلان لبدا حديث وحا لغا فايدي سنة لبدا قعمودين كور لو قادا منبرك كور كيسة إنينا أهين هديجي النبي صلى الله عليه وسلم بل مركو خطبين يا أنس حديث كيسي في صحيحين أو نتجي دون كتاب الاستسقاء ونمالينه وحوليه هاي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أها لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ربضان تمويه كعميه سكر وما قادي تشيرين حالتها كلا ودعاء سنة هدو كوضو حالة خطبة تشيرتا واصح لكن حديث تكوسو أروت النبي يقولوا كعمها كورو تشاكي تشيري حلقوا دعاء سنة حلية كلا ودعاء سنة وخطبة أنا هين حديث تكوسو أروته متواتر معنوي يوي تقريبا قوبة فربضان بلغا حفظي النبي صلى الله عليه وسلم سوغو دعاء سنة يو كعمها كورو قاضي لكن خطبة دحديدا isagoo khudbaynaya xilliga ducada inuu gacmaha kor u taago taa laga ma hayo nabiga sallallahu alayhi wasallam allahumma hal mar oo uu roob doonahay mooyee aw togidoona waa markii uu ninka Arabiga u soo galay yiri nabi allow yaani dhulkii waa ingegay oo jidadkii go'e oo la rafaad ilaahay noo bari oo nabiga gacmaha kor u taagay sallallahu alayhi wasallam marka halka mar baa laga hayaa markaana roob doon bay yahay saas daraadeed hadii uu imaamku khudbada kadib roob doonayo oo duca roob doon akhrinayo waa loo ogol yahay inuu gacmaha taago laakiin hadayna roob doon ku saabsanayn lama hayo nabiga meesha iyada gacmaha taagay waa khalad marka khaladin gacmaha la taago hadii imaamkii sida yahay ma'muumiintana sidoo kale xilliga ducada inay gacmaha taagaan oo imaamku markuu khudbaynayo markuu ducaynayo iyaguna ay gacmaha taagaan ayadana lama hayo saas weeyaan ayadana lama hayo sidaas daraadeed la imaam wala ma'muum gacan ma taaga tayib amiin ma dhihi karaan markuu imaamku khudbaynayo ayaa waxay tahay mas'ala khilaafiya
qaar waxay leeyihiin haamuusaa la yidhi aamiin xageed ka keenteen qaarna waxay leeyihiin war waxa laysu diiday waa in imaamka laga mashquulo ee imaamka ducadiisii in la aamiinsado waa imaamkii oo lala socdo waa taa dambaana ila xoog badan in lala aamiinsado imaamku markuu ducaynayo wakadalika hadduu amro nebiga salligiisa ayay isku hayaan qaar waxay leeyihiin nebiga in lagu salliyaa la rabaa oo la aamusi maayo qaarna waxay leeyihiin waa xaalad khaasi ha la aamuso ama markaad khudbadu dhammaato nebiga ku salli laakiin imaamkii oo khudbaynaya asagu hadduu salliyo sallina ku amro raac amarkiisa qaarna waxay leeyihiin war shibdhe walaa amra raaci iska dhigayso qalbigaa kaga salli laakiin afka ha kaga dhawaaqi adugu labada mas'alaba waa laba mas'alo oo muxuu culimadu ku muransan baabul manci reebidii buu baab yahay min alkalaami hadalka la iska reebo walimaamu walxaal alimaamu imaamku yakhtubu uu khudbaynayo warukhsati iyo rukhsadii yani idankii iyo ogolaanshihii buu baab u yahay fii takallumihi hadlidiisa loo idmo uu hadlo wa takliimihi imaamka hadlidiisa wa takliimihi iyo la hadlidiisa uu la hadlo cid kale limaslaxatin maslaxad darteed wa fi lkalaami iyadana baab buu u yahay qabla akhdihi hadlid la hadlo ay dadka ma'muumiintii hadlaan qabla akhdihi intuusan gudagelin fi lkhudbati khudbada intuusan gudagelin wa bacda itmaamiha iyo khudbadu markii uu dhammaystiro kadib masaladani waxa way baabkan uu kaga hadlayaa xaaladda imaamku uu khudbada u taagan yaho hadalka laysu diido kow iyo in loo ogolaado inuu hadli karo dadkana la hadli karo maslaxa darteed limaslaxa in uu hadli karo dadkana la hadli karo iyo inay iyadana la hadli karo intuusan khudbada bilaabin waa goorma waa markuu mimbarka ku soo fadhiisto weli intuusan khudbada isu taagin laakiin mimbarka uu ku fadhiyo ma la hadli karaa mise lama hadli karo waa taana wuxuu leeyahay waa la hadli karaa khudbadu markay bilaabata yay bilaabanaysaa manciga iyo diidada hadalka laysu diiday laakiin intayna khudbadu bilaabanin xataa imaamku mimbarkaba ha ku fadhiyee waa la hadli karaao wa fi lkalaami qabla akhdihi fi lkhudba saasuu ka wada waxaa kaleeto iyadana masalada kaleeta ah khudbadii buu dhammeeyey mimbarkii buu ka soo degayaa ama wuu saaranya laakiin khudbadii wuu ka baxay salaadiina weli muusan gelin khudbadu markay dhammaato salaadiina weli aan la gelin ma la hadli karaa xilligaa isaga iyadana waa la hadli karaa buu leeyahay saas way macnaha yani khudbadu intay socoto maya khudbadu intayna bilaabanin haa khudbadu markay dhammaatay oon salaadii la gelin haa saas way masaladu can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi idaa goortii qulta aad tidhaahdo lisaaxibika saaxiibkaaga kula fadhiya yowmaljumcati maalinta jumcada ansit war aamus oo dhegaysa khudbada markaad ku tidhaahdo walxaal walimaamu yakhtub xaaladda imaamku uu khudbada wado xaaladda uu khudbadu socoto haddaad saaxiibkaa ku tidhaahda aamus faqad laqawta waxaad la timid hadal aan macno lahayn laqwi baad la timid laqwiga waxaa la yidhahdaa hadalka baatilka ah iyo hadalka saaqidka in qiimaha lahayn ama qaarkood waxay dhaheen faqad laqawta ajir baad weyday halkaas bay qaar marinayaan ajir la'aan baa kugu dhacday rawaxa wariyay aljamaacatu baa warisay illa ibn maajah mooyee ayib waxaa laga qaadanayaa xaaladda hadalka aan la ogolayn inay tahay walimaamu yakhtub xaaladda ay khudbadu socoto maxaan ka fahnay khudbadu intayna bilaabaninna in hadalku bannaan yahay markay dhammaatana in hadalku bannaan yahay laakiin goormuu mamnuuc yahay walimaamu yakhtub xaaladuu imaamku khudbada wado oo hadalkiisu socdo macnaha ayib faqad laqawta hadal aan sax ahayn oo khaldan oo baatil ah waxba ka jirin ayaad ku hadashay laakiin ma intaa keliya mise waxbaa siyaada xadiidka soo socdaa sii caddaynay وعن علي رضي الله تعالى عنه قال عن علي رضي الله عنه في حديث دحدي oo lahu isaga u sugnaaday waxa lagaga warinaya qaal inuu yiri man dana ruuxi dhawaada min al-imaam imaamka u dhawaada
oo falaqa hadal xun ku kaca ama iska hadla oo walam yasmac aan dhagaysanin iska sheekeeyo oo iska hadhadlo oo aan khudbadiiba dhagaysanin oo walam yunsit aan khudbada u dhag raaricinin aan aamusin dheh lam yasmac aan maqlin khudbada oo walam yunsit aan aamusin oon dhagaysanin kaana waxaa ahaanaya calayhi korkiisa kiflun qayb oo min alwisri dembi ah walam yastamic ma idin qoran aan dhagaysanin oo walam yunsit aan aamusin oon dhag raaricinin kaana waxaa ahaanaya calayhi korkiisa kiflun qayb oo min alwisri dembiga ka mida qayb weynoo dembi ah baa korkiisa waman qaala ruuxii yidhaahda sax aamus saaxiibkii ku yidhahdo war aamus faqad laqaa hadal khaladuu isaguna ku hadlay waman laqaa ruuxii laqwi iyo hadal khalada ku hadlana oo hadla jumcada dhexdeedana khudbada dhexdeedana falaa jumcata lahu wax jumca ma laha jumca ma uu laha uma kadibna qaala wuxuu yidhi cali haakadaa sidaasaan samictu maqlay nebiyakum nebigiinna sal lla alay wasalam nebigiinna sidaasaan ka maqlay buu yidhi waxaa wariyay axmed wa abu daawuud xadiidka sanadkiisu waa daciif oo laba ciladood baa ku jirta nin la yidhahdo cataa oo cataa ibn abi muslim ibn khuraasaani ah waa saduuqun yahimu kaiiran yani wahmigiisa fara badan ismoodsiiskiisa cilada labaadii waxa weeye mawla imra'atihi cataa xaaskiisa mawlaheedii isagana nin la yaqaana maaha waa mubham labadaa ciladood baa ku jirta oo sanadku waa daciif xadiidku waa daciif ayib waa majhuul xadiidkaasi iyo kan ka horreeyaba waxay faa'iidaynayaan inaysan bannaanayn khudbadu intay socoto in la hadlo waxaa jira xadiid cabdillaahi bni camr bni caas oo abu daawuud iyo ibnu khusaymiya soo saareen oo dhahaya man laqaa watakhataa riqaaba annaasi kaanat lahu duhraa ruuxii iska hadla khudbada dhexdeeda oo dadka ka tiltillaabsada khudbadiisii duhur bay noqonaysaa waxaan u jeeda jumcadiisii duhur bay noqonaysaa bimacnaa xadiidkaasi sheekh albaani iyo qeyrkii way taxsiininayaan duhur bay noqonaysaa maxaa laga wadaa bimacnaa duhurka iyo jumcadaa ka fadli badan ajirkii iyo fadligii iyo dembidhaafkii iyo khayrkii badnaayee jumcada laga heli lahaa ka heli maayo laakiin wakhtiga waajibkii saarnaa un waa ka dhacaya waajibkii saarnaa intaasi waa ka dhacaysaayoo duhur ahaan bay u noqon jumcadiisu laakiin khayrkii faraha badnaayee meesha loo soo raadsaday iyo wixii badnaa waa waayahayaayo ma helayo maxaa keenay hadalkanuu iska hadhadlay ayaa keenaya ayib hadalka iyo cabadka ruuxuu iska ciyaaroo farihiisa ku ciyaaroo ismashquuliyo oo muxuu ahaay ama tusbax oo kale iskaga ciyaaro tusbax buu rogahayaa khudbadii baana socoto ama mehe muxuu ahaay quruurux buu ku ciyaaraya man massa alxasa faqad laqaa iyadana waa laqwi inaad quruurux iska taataabato hadda muxuu ahaay mobeelkiibaaba tusbixiya ka darayo quruuruxiiba mobeelkaa lagu ciyaaraya la farafaraynhayaa qaar geem bayba ku jiraan khudbadii baana socoto geem bay ciyaaraya qaar waxa weeyaan mobeelkii baa soo dhacayo khudbadii waa qabanhaya war khudbadii baa socotay ugu socod maxaad ka sheegay khudbada salaadda dhexeeday qaarkood ku qabanaya salaadda soo ku jira nin wadaadada ka mid ah ii sheegay midaan isku garab tukanayna baa salaaddii oo dhexda marayso mobeelkuu soo dhacay markaasuu saa u fiiriyey markuu fiiriyey malaha miduusan ka maarmi karinba war salaad baa ku jira igu soo celi marka waa imtixaan weyn marka yani waxa weeyaan waxyaabahaasoo dhan baa la diidi haddiiba la yidhi ninkii hadhadlahayo agtaada fadhiyey haddaad aamus ku tidhaahda laqwi baad samaysay waa nin hadda munkar samaynaya ogow nin munkar samaynaya kama reebi karta haddii lagu yidhi wax kale maa lagu oggolaana waxaa la rabaa attentionkaagoo dhan inuu ku jeedsado waxa socda ood khudbada dhegaysato waxaa kaloo dhan aad ka baxdo ayib وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من تكلم روحي الله يوم الجمعة ما ننت الجمعة
walimaamu yakhtub isagoo imaamku khudbaynayo fa huwa isagu ka maali alximaari dameer oo kale waay dameer sifadiisoo kale waay dameerkaasoo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub waaweyn xambaarsan oo dhankay isaga mid yihiin waxay isaga mid yihiin yani cadamu alintifaac wa xamli alahqaal culaysna waa ku saaran yahay intifaacna ma helis dameerka kutubta culus saaran yihiin wax manaafacaad le baa saaran soo ma laakiin wixii manaafacaadka lahaa culayskiisii wuu saaran yahay nafcigiisiina ma intifaacsanayo oo dameer buuba ka yahayba soo ma kanna waa la midoo meeshii waa fadhiyaa ganacsi ma aadin oo beer ma aadin oo warshad ma aadin oo meeshuu fadhiyaa waa yuururaa culayskii waa saaran yahay intifaacii khudbada iyo khayrkana ajirkiina waa waayaya marka waa uun dameer kutubi saarantoo kale dhankaas isaga mid yihin fa huwa kaasi ka maali alximaari dameer oo kaluu la mid yahay oo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub waladii midka yaquulu leh lahu isaga ku dhahaya yaquulu leh lahu kaa hadlaya ku dhahaya ansit war aamusoo dhegayso laysa lahu isagana uma sugnaano jumcatun jumca uma sugnaano kaa hadhadlahaya midka war aamus naga aamus dhahayana isagana jumca male ayib rawaahu axmed baa wariyey sanadkiisu xadiidka waa daciif waxaa ku jira in la yidhahdo mujaalid ibnu saciid alhamdani mujaalid ibnu saciid oo jumhuurtu ay daciifinayaan baa ku jira sidaas daraaddeed ma sugnaa xadiidka waxaa kaloo soo saaray ibn abi shayba bazaar iyo tabaraani baa soo saaray xaafid ibnu xajar buluuqulmaraamka wuxuu ku leeyahay laa ba'sa biisnaadihi dhib ma leh laakiin dacfi baa ku jira xadiidka ma sugna wacan abi darda radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi jalasa wuu fadhiistay annabiyu nebigu sal lay wasalam yowman maalin cala almimbari mimbarka korkiisuu ku fadhiistay fakhataba annaasa dadkiibuu u khudbeeyey wa talaa wuxuu akhriyey aayatan aayad buu akhriyey wa ilaa janbii dhinacaygana waxaa ahaaday buuhi ubay ibnu kacbin baa ahaaday ubay ibnu kacb baa garab fadhiya ayib nebigu aayad buu akhriyey faqultu waxaan idhi buuhi abudarda baa dhahaya qultu waxaan idhi yaa ubayiyow mataa unzilad goormaa la soo dejiyey haadihi alaayata war aayadda nebigu akhriyey goormay soo degtay khudbadii baa socota fa abaa wuu diiday buu idhi ubay an yukallimanii inuu ila hadlo shib baaba iga aamusay uma kadib sa'altuu haddana waan ku celiyey buuhi war maad ila hadashid aayaddu goormay soo degtay fa abaa waa diiday haddana an yukallimanii inuu ila hadlo iima jawaabay xataa nazla ilaa uu soo degay rasuululahi sal lay wasalam ilaa rasuulku uu soo degayoo mimbarkii ka soo dego khudbadii dhammeeyey faqaala lii markaasuu wuxuu igu yidhi ubay wuxuu igu yidhi maa laka kuuma sugnaanin min jumcatika jumcadaadii xaggeeda kaagama sugnaanin ilaa maa laqayta ilaa hadalxumadaad ku kacday mooye hadalxumadii hadalkii iyo laqwigii aad ku kacday basaad jumcadaadii ku leedahay wax kaloo meeshaa kaaga xasilaya ma jiro waa kuu dhammaatay ayb falama insarafa markuu soo gadoomay rasuululahi sal lay slm rasuulku markuu soo gadoomay ayaan ji'tuhu u imid buudhi fa ahbartuhu markaasaan u warramay rasuul ilaahay oo ninkii ubay ahaa maanta waxaasuu igu sameeyey aayad in gooray soo degtayna waa ii sheegi waay kadibna wuxuu igu yidhi jumcadaadii oo dhan laqwi bay noqotay waxba kama jiraan fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam sadaqa ubay run buu sheegay buuhi faidaa goortii samicta aad maqasho imaamkaaga yatakallamu isagoo hadlaya fa ansit aamusoo dhegayso xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo ilaa uu ka faaruqo saasuu ku yidhi rawahu axmed baa wariyey wakadalika taxaawi baa soo saaray fii sharxi macaani alaahaar tabaraani baa soo saaray sanadkiisu waa daciif xadiidkuse waa xadiid markuu u yeeraya xasana ama saxiixa maxaa yeelay wuxuu yimid sidoo kale isaga oo musnad ubay ibnu kacba xadiidku marka waa saxiix liayrihi ama waa xasan liayrihi ama waa xasan baa dhihila waa sugan yaha macnaha laakiin sanadkiisu waa daciif kan meesha inoo yaal axaadiista u markhaati kacaysa waxaa ka mid a xadiidka isaga xadiid ibnu cumar oo abu daawuud iyo qayrkii ay soo saareen oo nebigu yuri sal lay wasalam jumcada waxaa soo xaadira 3 ruux nin farajulun xadaraha yalquu nin wuu soo xaadiraa khudbada jumcada wuu yimaadaa isagoo iska hadhadlaya khudbadu intay socoto dhan iska sheekaynay ayib fa huwa xaduhu minha ka
khudbadii jumcadiisii waxa uu ka helayo waa uun hadalkaas laqwiga mooy wax kale ka heli maayo ninka labaadna waa nin soo xaadiro meesha yimid asagoo ducaysanaya oo ilaahay baryay kaasi waa nin ilaahay baryay hadduu doonana ilaahay wuu siin hadduu doonana alla waa u diidi ninka saddexaad ee jumcada yimaadaay waa nin yimid biinsaatin wa sukuutin walam yatakhatta raqabata muslim nin soo xaadiray oo aamus iyo xasilooni ku dhageystay cidna aan qoortiisa ka tilaabsanin walam yu'di ahadan cidna aan dhibin fahiya kafaaratun ila aljum'ati allati taliha wa ziyadatu 3 ayyam kaas waxay u tahay dambi dhaaf ilaa jumcada kale iyo waliba 3 bari oo ziyaada ma jeed marka xadiiska qaybtiisa hore waxay tilmaamaysaa ruuxii laqwi ku kacay jumcadiisa wuxuu ka helayo waa un laqwigaas sida xadiiskani ba tilmaamay xadiisku markuu ugu yar yahay xasan buu noqon ama saxiix liqayri buu noqonaya wuxuuna tilmaamayaa ruuxii hadla inuusan ajirkii jumcada lahayn khudbada dhexeeda ruuxii ku hadla sidaas way macna طيب وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال وحده كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحا يخطبنا منه خطبه يوها حديث قاركود waxa ku soo aroortay oo ku sugan in aad ruuxa ishaaro inaad hadasho lama ogola laakiin ishaaro waad ku aamusin kartaa yaani markuu hadlo kale hadaad saadhaw ama ishaaro aad gacanta hadalka la diiday laakiin ishaaradu iyadu dhib male بعض الاحاديث way ku soo aroortay وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال وحده كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحا يخطبنا من نو خطبه فجاء وحي يمد الحسن والحسين حسن يا حسين با يمد عليهما كركودا حاليين او يحي ايين قميصان لبا قميص او احمراني او عسعس لبا قميص او غدغدودان باي قبان ولبدي ويل النبي صلى الله عليه وسلم gabadhiisu la shay Fatima ilma Ali ibn Abi Talib iyagoo laba qamiisoo gudguduudan qaba yimaadeen yamshiyani xaala ay soconayaan oo wayacthurani ay kufayaan waa yaryarihiin arru yaryar waa mar waa kacayaan oo ay soconayaan marna way kufayaan hadana way kacayaan hadana way kufayaan طيب فنزل markaasuu soo degay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam min al-minbar minbarkiibu ka soo degay fahamalahuma markaasuu xambaaray labadoodii فوضعهما markaasuu dhigay bayna yaday hortiisuu dhigay ثم كدبنا قال وحيري صدق الله ورسوله إلهي رنبو الشيء رسول كيسنا رنبو الشيء إنما أموالكم وأولادكم فتنة عرورتين يحولهين واء امتحان نظرت وان فيريه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الصبيين لبدا ويلا يريربان فيريه يمشيان أيغو أو صحون يمر ويعثران مرنا كفيا فلم أصبر ما آنان صبر وان اسهين واي حتى قطعت إلى أن قويي حديثي شيكديدي وركيغي أو رفعتهما أنكروا قاضي مركان أركيبه واسهين واي جعلت آد بو نبي قوش على صلوات ربي والسلام عليه آد بو قوش على عرورت فاضمه ودنبو آد قوش على سيقوني طيب روح وري الخمسة شنتبا ورسي حديث كان شغلماني وحو ليه سند كيسوا صحيح على شرط مسلم سيدا waxa ugu horeeyo yiri Hakim iyo Dhahabi waxa kale saxiixiyay Ibn Khuzaymah Ibn Hibban Tirmidhina waa tahsiininaya xadiidka wuxuu ku tusaya khatiibka dadka u khudbaynayay haday xaaja timaado inuu khudbada joojin karo oo wax kale oo ku mashquuli karo haduu khudbada intuu yare joojiyo shay kale ku mashquulana khudbadii soo bilaabi maaye meeshay u joogtay buu ka sii wadi سيقول بنانته عند الحاجة إنه خطبة تشوشيو جويو ويلي كلام وحكلو كتوسا يا خطيبك وحا أبنان إنه لها الله ذاتك مأمومين تا إنه لها الله قار كميدا أما قار كميدا سيقونية وجود دقو أما سيقونية يعني ولها صاو ويلي كلام ساسي معنا ومثلا وكان صومرنا ننكي مساجك الصوق عليه اسكفريست ninki masaajidka soo galay nabigu ma tukad soo badhi war kactuka baa lagu yiri kactuko marka waa si gooniyo dadka ula hadlaya wakadalika dadka ma'muumiintihi ayagu inay isla hadlaan baan la ogolayn laakiin imaamka toos uu ula hadli karaa mid iyaga kamid su'aalu weydiyo ka jawaabi karaa wuxuu rabo uu weydiisan karaa waxaan u tagi doonaa fi kitaab al-istisqa
nabiga khudbada u taagan sallallahu alayhi wasallam ninka acraabiga waa ka soo galay kana sheegayna macnaha la hadlay nabiguna u jawaabay marka imaamka iyo ma'muumiinta wax waa dhexmari karaan imaamka khaasatan wuxuu haystaa masaaxo fara badan buu haystaa oo isagoo ku hadli karo oo khudbada ku joojin karo laakiin cidda laga hadlayo ee xadiistii hore ka hadlaysay waa dadka ma'muumiinta ma'muumka isaga looma ogola imaamkiisa waxaan ahayn inuu ku mashquulo tayib بعض الفقهاء baa waxay leeyihiin hadduu khudbada joojiyo oo wuxuun yimid ama wax soo dariyay u joojiyo uu soo bilaabi bilee wasawaabu inuusan soo bilaabayn ma soo celinayo khudbada وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل مدق من المنبر كسو دقي جري يوم الجمعة مالنت الجمعة فيكلمه مركا وحا لها الجري الرجل ننكا في الحاجة الدنتو كلها الجري ويكلمه النبي قلنا لها الجري ثم كدبنا يتقدم وهرمري جري إلى مصلاه ميشو كنت كان يبي هري أغمري جري أدرك جري أو معنا أسعن جري فيصلي مركا سوتو كان جري أما دتك توجين جري رواه وحولي الخمسة طيب بمعنى وحويان markuu minbarka khudbada dhameeyo minbarka ka soo dago intuu san salaada galin baa la hadli jiray isaguna dadka la hadli jiray oo dadku dantooda kala hadli jireen macnaha salaadiina wali lama gal xadiidkani aimadu waxay leeyihiin al-Imam al-Bukhari Abu Daawud iyo Tirmidhi iyo Bayhaqi iyo Sheikh Albani waxay leeyihiin xadiidkani ismoodsiis baa dhacay oo waxa ismoodsiiyay nin la yiraahdo Jariir ibn Hazim waa nin thiqa ah laakiin al-Bukhari qeyrka ilayhiin ismoodsiis baa marmarka qaar kood ku dhaca waxba ka khaldama xadiidkani marka wuxuu kaga khaldama bileen xadiid kale sida saxiixa wax weeyaan xadiidkani sidan uma jiro laakiin xadiidka uu ku khalday saxda waxa weeye xadiidka Hamad ibn Salama iyo qeyrkii ay ka warinayaan thaabit an Anas oo ah uqimat salatu al-isha qama rajulun faqala ya rasul Allah inna li hajatan فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى به حديثك كاسو أها نينكاسا marka ismoodiisayo kanuu ku khalday meesha inoo yaala kana wax jira ma xadiidka jiray uu ku khalday wax weeyaan salaadii baa la aqimay cishaha nin baa isa soo taagay salaadii cishahoon la gelin laakiin la aqimay baa nin soo istaagay markaasuu yiri rasuul ilaahay oo danbaan ka leeyahay ninkii buu nabigu isla taagay isagoo la faqaya ilaa dadkii ay lulmoodeen oo hurda qabatay muddo la taagnaa nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna nabigu intuu ka yimid buu salaadii dadka tujiyay xadiidku waa kaas ninka la yiraahdo marka Jariir ibn Hazim bay arintu ka khaldanto ismoodsiiyo xadiidkaas buu khaldayo kan kaga khaldamay kanise wax jira ma aha bay kan meesha inoogu qoran xadiis jira ma aha kaas kale ayuu ismoodsiiyay oo kaas iyo kanuu isku khalday macna kaasoo jira kanoo jira kanoon jirin inoo qoran iyo kaasoo jira ayaa isaga khaldamay weelay وعن ثعلبة بن أبي مالك لكن حديثك waxa laga wuxuu faa'iideynaya xadiiska waxa loo keenay in imaamku markuu minbarka ka soo dago salaada intuu san galin khatiibku minbarka markuu ka soo dago salaadan uu san wali galin inuu hadli in la hadli karo oo dadku hadli karaan xilliga isaga in dadku hadli karaan tayib xadiisku waa dhaif oo ma sugna laakiin atharkan soo socda ayaa booskiisa galay oo masalada faa'iideynay وعن ثعلبة بن أبي مالك قال وحوري كانوا وحي أهايين صحابته يتحدثون كوشيكيست يوم الجمعة مالنت الجمعة والحال عمر جالس أوفردي على المنبر ككوركيس أوكفردي عمر أو منبر ككوركيس أوكفردي أي دتكو شيكيسن جيرين فإذا سكت مركو آموس المؤذن كمركو آموس وآذان كدمينا قام عمر واستاجر فلم يتكلم مهل جيرين أحد روحنا حتى يقضي إلى دميو الخطبتين لبدي خطبة كلتيهما لبد ضبا إلى لبد خطبة دميو ولا آموس جيرين لكن مركو منبر كوسو فريستو ولي سؤوسن استاغي ولا اسك شيكيسن جيرين فإذا قامت الصلاة صلاة مركي لو استقامت مركي استاغتو الصلاة صلاة مركي استاغتو لو استاغوي او نزل عمر نسو دغو صلاة دي سولي ان لا غلينا تكلموا ايدنا way hadli jireen
markii mimbarka uu ka soo dego weliisa salaadii aan la gelin ama aqiimaadii ha dhacdo ama weliyaysan dhicine xilligaana dadku waa iska hadli jireen markuu mimbarka ku fadhiisto weli uusan khudbada bilaabinna way hadli jireen dadku rawahu waxa wariyay atharka isaga ash-Shaafi'i baa wariyay fi musnadihi buu ku wariyay طيب وكذلك waxa soo saaray إسحاق baa soo saaray fi musnadihi في المطالب العالية sidoo ku sheegay حافظ ابن حجر atharkaasi waa athar sahih as-sanad حافظ ابن حجر iyo qeyrkiiba sidaasay tilmaamayaan oo waa athar sugan oo Umar ka sugan saas macna saxaabada ka sugan waxa kale isagana xoojinaya athar kaleeto oo isagana ka sugan Uthman ibn Affan ibn Sa'd baa fi tabaqat ku soo saaray qeyrkii Musa ibn Talha wuxuu leeyahay waxaan arkay buu Uthman ibn Affan oo muaddinkii uu aadaamayo oo dadka la sheekaysanaya oo wax weydiinaya oo ka warsanaya badeecada iyo suuqa waxay ka joogtay oo wararka weydiinaya maxaa soo kordhay waa warsanaya war maxaa jira maxaa soo kordhay muxuu ahay badeecada iyo ascaarteeda ka warrama buu ku hayaa xilliga isaga ana muaddinkii salaada jumcada aadaankii baa socda aadaankii haduu socdo soo khatiibkii mimbarka ma saar xilliga waa iska sheekaynaya dadkii buu la sheekaynaya marka yaani Uthman waqtigiisina saasay ahayd Umarna saasay ahayd saxaabadu saasay ahayd waxa laga qaadanaya marka inay caan ahayd oo mashhuur ahayd intayna khudbadu bilaabanin inay iska sheekaysan jireen hadalkuna uusan mamnuuc ahayn saxaabadu inay saahan jireen طيب taas laga faa'iideysanay ijmaac ahaan bay marka ka dhigan tahay culimadu macnaha labada xaaladoodba in la hadli karayo jumhuur ahli ilmi waxay ku tagaan culimada badankooda in khudbada kadib la hadli karo salaada intaan la gelin laakiin waxa karaahaysi arinta ayada al-Imam Abu Hanifa waxaana xoojinaya xadiis baa ku soo aroortay tilmaamaysa in ay wanaagsan tahay ila salaada laga baxo ruuxu inuu san hadlin waxa kamida mesela xadiisu Salman oo soo marnay fayansuta hatta yaqdi salatahu fayunsit ila salatu ka dhamaato inuu ruuxu aamusnaado wakadalika waxa lamida isagana xadiis kaleeto isagana kaana sayba soo saar waana xadiis sahih xadiiskii nabiga ee soo marnay isagana fastami' wa ansit hatta yaqdi al-imam jum'atahu wa kalamuhu ila jum'ada la dhameeyo aamusnow taasi marka waxay ku tusibeenayaan inay sunno tahay ila salaada laga baxo in la aamusnaado laakiin laazima hadigi saxaabada ku tusinaysan laazim ahayn oo khudbadu haday dhamaato salaadana aan wali la gelin waa la hadli karaa khudbada ka horna waa la hadli karaa laakiin ila aamusa fiican waa sida fiican way wallahu a'lam islaaki uu ka daayira طيب ما كان محوها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من آخر يوم الجمعة مالنت الجمعة على إثر سورة الجمعة سورة الجمعة قداش هذا محو النبي آخرين شري سؤاشا إسوغو ويدي ضحاك بن قيسي نعمان بن بشير إسوغو ويدي با وحا أويري سيدان قال وحوري كان وحوها يقرأ من آخرية هل أتاك حديث الغاشية رواه الجماعة باوريسي إلا البخارية والترمذي الترمذي مويه tanina waxay ku tusaysaa ragcadda hore in lagu akhriyo suuratul jum'a ragcadda labaadna hal ataaka hadithul ghashiya ayadana waa qaab kale iyo si kale oo banaan weeyada oo sunna oo nabigu sameeyay sallallahu alayhi wasallam wa an nu'man ibn bashir waxa laga warin qaala inuu yiri kaana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yaqra'u mid akhriyo fil ciidayn labada ciidood dhaxdooda iyo wa fil jum'ati iyo jum'ada dhaxdeeda bisabbih isma rabbikal a'la وهل أتاك حديث الغاشية لبدا سورة بآخرين جري قال وحيري وإذا قرت اجتمع أي كلمان العيد والجمعة عيد إيه جمعة هدي هل مال وضا النقدان هدي كلمان دي في يوم واحد هل مال دحدث هدي سوي مادان ومال جمعة بهدنا عيد نقط وعيد الأضحى مع عيد الفطر نقط يقرأوا آخرين جري بهما لبدا آخرين جري لبدا سورة بآخرين جري في الصلاتين لبدا صلاة ضد salaada jumcadana labada suurood buu ku aqrin jiray salaada ciidana labada suurood buu ku aqrin jiray hal maalin haday kulmaan xataa روح وري حديث كاسي الجماعة باوريسي إلا البخاري وابن ماجه بخاري وابن ماجه موي حديث كان وحو فائدة يدنا إنه كم التحي سبح اسم
iyo hal ataaka xadiidu suuratul ghaashiya labadaa in laysu dabadhigi karo labada ragcadood ee salaada jumcada. ayib ciideenkuna waa la mid. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان وحا يقرأ مد أخريا في الجمعة جمعة دحية وحكو أخرين شري بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد باوري والنسائي وأبو داود وحصحيحي ابن خزيمة ابن حبان يا شيخ الباني الحافظ العراقي روح إليها سنة كيس صحيح كيهروا لمنيه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها يقرأ مد أخريا يوم الجمعة مالنت جمعة في صلاة الصبح صلاة الصبح مالنت الجمعة وحو أخرين شري ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان سورة السجدة والركعة هراء إيوه هل أتى على الإنسان والركعة ضمبا. وفي صلاة الجمعة صلاة الجمعة وحو أخرين شري بسورة الجمعة إيوه والمنافقين سورة الجمعة والركعة هراء هي سورة المنافقين وجماعة الضنباء يعني ركعة الضنباء. رواه وري أحمد باوري ومسلم وأبو داود والنسائي. ساسوي ومذهب كالشافعي يا أحمد يا أصحاب الحديث صلاة الجمعة صلاة الصبح ما ننت الجمعة إن لوضع سورة الله خريه سورة السجدة هي سورة هل أتى على الإنسان وركعة الأبعاد. قاربا waxay leeyihiin suurad gooniya in lagu koobay waa khalad laakiin xadiistu haday sugan tahay sidii nabigu sameyn jiray baa la sameey. laakiin khulafaa ar-raashidiin waxa ka sugan saxaabada hadigoodiina ahaa shayga hadii laga baqo inay caamadu u qaataan inuu waajib yahay sunnana asalkiisu uu yahay marmarka qaar kood in laga tago si dadku u ogaadaan inuusan laazim ahayn saasi macna ayay shaygu sunnanimadiisa in kor looga qaado wujuub la gaarsiyo waa khalad. marka si dadweynuhu u fahmaan bal qaar kood waxa dhici kartaba inay u qaataan suuratu sajda marka la akhriyo oo aayatu sujuud la marayo waa la sujuudaa walow uu leeyahay xaafid ibn xajar cali raxmatullah lama hayo nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu akhrin jiray waa la hayaa laakiin salaada subax inuu ku sujuudi jiray markuu marayo lama hayo leeyahay. laakiin umuumaadka xadiista kale ku soo arortay meesha sujuuda in la sujuudayo umuumaadka kale baa la daliishan si khaas ah laakiin daliil ugu ma soo aroorin. laakiin ayada lafteeda si aan dadweynuhu ugu qaadanayn inay tahay sujuud salaada waraacsanba dadka caamadii waxay u qaadan karaan ba salaada jumcadu waa laba ragcadood iyo sujuud dhexda ku jirta hadaad uu laazimto caamadu saas u qaadan kartaa. saas daraadeed waxa loo baahan yahay lafteeda marar qaar kood in laga tago sujuuda si loo ogaado sujuudani inay quraanka la akhrinayo la socotay ayna salaada la soconin salaada kamid ma saas macna bimaana salaada yani wax weeyaan la tukanayay qayb kamida ma ahe waxa keentay sujuudan آية الأخرية سجود أمره أما يعني سجود كاملس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها يقرأ مد أخرية في صلاة الصبح صلاة الصبح يوم الجمعة ما ننت الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان رواه الجماعة باوريسي إلا الترمذي مويه وأبا داود يا أبو داود مويه لكنه حديث كني لهما أبو داود الترمذي بأسقنا من حديث ابن عباس حلوه معين يجري حديثكم مركو حديث أبو هريرة وأبو هريرة لقوا ورينيو ترمذي أبي داود مين ورنين لكن ويوريين أسقوا حديث عبد الله بن عباس لقوا ورينيا ما فهمتين بمعنى مركو حديث ابن عباس يه وابن عباس ويا الصحابي حديث كان لقوا ورينيو ترمذي يا أبو داود يا مسلم يا غير كتب وريه لكن مركو حديث كأبو هريرة لقوا وريه وإسل حديث كي marka Abu Hurayra waxaan jeedaa Abu Daawud iyo Tirmidhi ma ayna warin markuu yahay xadiis Abu Hurayra yani xadiisku waa mid waa un xadiis laakiin xadiiska sidiisaba hadii saxaabigu kala bedelan yahay laba xadiis buu ka dhigan yahay saas way culimada yani mustalaha iyo xadiisku isagoo mid ah hadii laba saxaabi kala warinayaan laba xadiis buu ka dhigan yahay saas daraadeed xadiis ibn Abbas markuu yahay Muslim iyo Abu Daawud iyo Tirmidhi baa soo saaray markuu yahay xadiis Abi Hurayra uu yahayna
tirmidhi iyo abu daawud ma warinina inta kala warisa hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam